السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال رمضان كريم. ما أنت وما أنت اللبات رمضان وما أنت اللبات وصبتي الحمد لله شلي وان صومني مركا. الحمد لله رمضان كريم كل عام وأنتم بخير ولا ليال سود هذا مركا. وتكتين بيشن وبالخير بدن مركا وحرمنا إن إسبرار الجنة ولا ليال وتكتين بالخير بدن أن كجرنا الحمد لله مركا. waxaan rabaa laba qiso inaan idinka sheekeeyo maxaa yeelay waa waqti isbaraarujis u baahan, waa waqti la rabo in wax la isku sheego ilaahay la soo xasuusiyo. marka walaalayaal, marka qisadan bilaabayna. qisadan qiso kale ma aha, waa qiso cajiib ah. tu waxay ka sheekeynaysaa adduunyada inay wax taraynin, tuna waxay ka sheekeynaysaa ilaahay ku xirnaanshihiisa ka sheekeynaysaa iyo shaydaan suuqu duusanayo. marka waxaan horumarnayaa tan adduunyada inay wax tarayn. horta walaalayaal, waxaad ku ogaanaysiin qiso ayaa jirtay. qisadaas waxay ahayd nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markuu wuxuu aaday asag iyo laba nin kale, saddex nin kale waxay aadeen, waxay isku raaceen dhanka duurka. maxaa yeelay waqti dadka way dalxiisaan. marka nabiyullaahi ciisa calayhi salaam iyo labadii nin kale waxay aadeen duurka inay soo dalxiisaan, ay soo fiiriyaan. marka say u socdeen waxay arkeen marka saddexba oo dhagax ah oo laakiin dhalaal badan oo dahab ah ayay arkeen meel oo geed hoostiisa ku arkeen. marka nabi ciise wuxuu dhahay dhagaxan ninkii dhagax waaye dahab waaye, marka ninkii qaato anigu iga haraya u dhahay, ninkii qaadanina wuu ila soconaa. maxaa yeelay waa adduunyo, wax ay taraysa ma jirto. marka walaalayaal, saddexdii nin waxay go'aansadeen inay qaataan dhagaxii, ay qaataan ayay go'aansadeen. marka nabiyullaahi ciise wuxuu dhahay haddaad qaadanaysiin waa aniga iga hartaan, aniga waa idinka tegaa. marka saddexdii nin adduunyaha waa shaydaana waalay. marka dhagaxii ay ku kala ordeen, saddexdoodu way kala qaateen. marka saddexdii markay kala qaateen marka nabi ciise uu ka tagay. maxaa yeelay wuxuu dhahay haddii qaadatiin anna waa idinka tegaa, maxaa yeelay aniga adduunyo hal meel ma galno. maxaa yeelay waa ogtihiin nabi uu soo diray adduunyo jecel ma jiro. waa ogtihiin nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam adduunyo muu jeclaan. dadka wuxuu dhihi jiray war adduunyo ka carara, adduunyo aakhiraha ka fiican, saasuu dhihi jiray. marka nabiyullaahi ciisa wuxuu dhahay aniga adduunyo hal meel ma galno, iniga adduunya dad ku ordaysiin anna waa idinka tegaa. marka uu ka tagay, saddexdii nin waxay qaateen dahabkii. markay qaateen waxay kadib gaajaa qabatay, say u fadhiyeen gaajo sheekaysanayeen, way faraxsiin. maxaa yeelay gaajaa qabatay. marka waxay dhaheen aan qaadano dhagaxyaha sida aan ugu dhowaano xaafadda maqribadii aan ugu dhowaanaynaa. marka intaa ka hor laakiin gaajana haysaa hal nin aan u dirino ay dhaheen maxaa la cunto aan soo cunno saan cunno. marka kadib ninkay direen asoo sii socdo shaydaan baa, waa ogtihiin shaydaan qof kasta shaydaan uu qabaa. shaydaankiisa jirka dhiigiisu dhexgalgale. marka uu u sheekeeyey wuxuu dhahay cuntada markaa soo cunto cuntadooda ugu darsun say u dhintaan adiga saddexda u qaadato, saddexda dhagax. marka ninka saas uu go'aansaday. labadii nin kale ayagana shaydaan u sheekeeyey, waxay dhaheen isla hadleen. waxay dhaheen ninkaas intuu maqan yahay toori aan soo qaadano, markuu cunto noo keeno aan durdurno aan dilno, saasaan ku dhinto. ayaga marka waa la isku baadi maqan yahay. ninkii markuu cuntada soo cunay, cuntadii ayaga lahayn sun uu soo daray, uu soo tagay. marka wuxuu imaaday, labada nin wuu imaaday. markuu u imaaday ayagana markuu cunto saa u soo dhigay bay tooriye ka horgeeyeen, way dileen, saasuu ku dhintay. ayagana gaajahaasay gacmaha intay dhaqteen cuntadii cuneen, meeshay ku dhinteen. saddexdii nin saasay ku dhinteen. maalintii ku xigtay nabiyullaahi ciisa oo laba nin kale la socdo ayaa meesha soo maray. marka waxay arkeen saddexdii nin oo meesha yaalaan iyo cuntadii sideedii oo wax laga cunay iyo dhagaxii iyo dahabkii meesha yaalaan. markaasuu dhahay
ayaan meeshan aniga saddexdan nin aan isla soconay dhagaxyadan dahabka meeshan ku arkeen meesha markay ku arkeen waxaan dhahay haddaad iga tagtiin adduunyada raacdiin marka ani waa idinka tegi u dhahay aan dhahay marka sidaa daraaddeed dhagaxyana iga doorteen maadna waa arkaysiin adduunyadan saanan isku gelaayo waad ogtihiin qofka bilaadanka ah qof kale wax lama jeclo qofka taajirka ah wuxuu qabaa cadawyo badan qofka faqiirka ah waad ogtihiin marka lacagta iyo adduunyada waa hal adduunya horta lagu sheego lacag soomo wax kale ma ah qof kasta qofka milyan hadda ogtihiin qofka adduunka ugu taajirsan lacag uu sii raadiyaa lacagta uu sii raadinayo maxaa yeelay mar rabo inuu hoos u dhaco faqiir u noqdo mar rabo qof kasta wuxuu rabaa inuu kor ahaado marka walaalayaal adduunyadan meel lagama gaarayo marka waxaa ka fiican oona ka qeyr badan tan aakhara marka aakhara u shaqaysano qofka maal leh maalkiisa ha sadaqaysto ha zakaha ku bixiyo ha ku xajiyo masaakiintana ha ku quudiyo maxaa yeelay asaga ilaahay baa u taallaa maanta aakhara marka banka carafa la joogo qiyaama asaga wax taraysaa maxaa yeelay sadaqadaad baxsato maanta aakhara sadaqada wallahi wax ka fiican ma jiro marka walaalayaal haddaad lacag leedahay oo isku ogtahay inaad wax leedahay walaalkaaga masaakiinka ah ha ka xasin midda kale waxaa lagu jiraa bisha ramadaan waa ogtihiin dadka haddii saacidayso masaakiinta wallahi aaday u fiican tahay maxaa yeelay sadaqo waad ogtihiin inay aad iyo aad u fiican tahay maanta aakhara walaalayaal midda kale sheekada kale aan idiin hayo waxaa waaye nin ayaa jiray ilaahay buu aad iyo aad u caabudi jiray ilaahay wuu ku xirnaa aad iyo aad salaad kama tegayso soon kama tegaayo marka ninka wuxuu ku jiray gurigiisa bes meeshuu masaajid ka dhigtay meeshaas luu ku jiray ilaahay uu ku caabudayay marka bannaan u soo bixinin nin wuxuu ahaa dadka ka nabad galay carabkiisna yan aamusan maasha allah u ahaa dadkan buu la hadli jiray hadduu la hadlana hadal samaan uu kula hadli jiray hadal xun buu kula hadli jiray dadkao dhan way garanayaan dadka tuulada joogaan way aqaaneen ninkaas inuu fiican yahay marka waxaa jira marka dariskiisa laba wiil oo dhalinyaro ah marka tuuladii waxaa la dhahay jihaada la aadaa la dhahay marka labadii wiil waxaa la dhashay gabar oo qeyngaar ah oo 18 jir ah ayaa la dhaltay qurux badan marka waxay dhaheen haddaan ka tagno walaasheenna jihaad uma qaadi karno marka ninkaas oo maxaa la ninka fiicnaa oo ilaahay ka cabsanaya oo meeshii gurigiisa agtiisaan guri oo u dhisayna marka asagaan dhahaynaa ilaali saasay go'aansadeen marka u tageen ninka u tageen wuxuu dhahay haddii ilaahay dartiis u bixisiin jihaad u tegaysiin gabadhan anigu halleeya maxaa yeelay dad waxaa tihiin dad jihaad ilaahay dartiis u baxay marka dad wax loo taro iniga u fiican marka ajir fiican aan ka helaa marka sidaa daraaddeed ordow dheh anigu halleeya gabadhan waxbana kuma dhacay marka wiilashana way ogyihiin ninkan inuu nin fiican yahay uuna ka taxadaraya ogaayeen marka saa daraaddeed saa daraaddeed way u imaadeen meeshay guri ku dhiseen meeshay gabadhii ay ku nooleed marka ninkaasi gabadhii markuu cuntuu karsan jiray cunto markuu karsado waxuu ka cuna wax kale gabadha uu keen jiray gabadha markuu u geynayo albaabka hoos uga xiran gabadha ayana gabar waxay ahayd ilaahay ka cabsanayso maasha allah ahayd albaabka markuu u keeno albaabku dhigi jiray albaabku u qaraaci jiray wuxuu dhihi jiray cuntada qaado cun marka saa daraaddeed gabadhii ayadana way albaabka intay iska furtay hoos ka qaadanaysay ismayna arki jirin maxaa yeelay ninka nin xishood badan u ahaa gabadhina xishood badan ahayd maasha allah marka maalin ka mid ah ninka asoo salaada ka baxay ilaahay waa imtixaamkiisa moogtay ilaahay wuu ku imtixaami marka ibliis waad garanaysiin shaydaanka weyn ibliis ayaa nin isku soo foomgariyay camal nin buu iska soo dhigay nin dhalinyaro ah oo caadi ah buu iska soo dhigay wuu imaaday keligiis fadhiyo ilaahay baryaa markuu ninkii salaada ka baxay oo baryada ka baxay uu keligiis iska fadhiyo cunto cun rabo ayuu dhahay warnihow horta wuu salaamay markaasuu dhahay weligaa kumaana arkin intee iga soo gashay camal ninkan muu arkin weligiis ninkan maxaa yeelay waa ibliis oo nin iska soo dhigay nin hadduu iska soo dhigana magaalada muu ku arkin sooma
markaasuu dhahay niyo ani nin liigasoo kala soo diraan ahay saas marka nin liigasoo kala diraan ahay camal waxaan rabaa inaan kuu sheego. markaasuu dhahay maxaa ii sheegi kartaa? wuxuu dhahay niyo gabadhan aday ku fiirisaa markasta markaad cunto soo wado oo kale dariishada istaagi way ku fiirini way ku jeclaatay camal waxaa rabtaa inaa xiriir ay kula sameyso. marka ninkan wuu yaabay wuxuu dhahay gabadhan say ii fiirinaysaan waa maya. shaydaanka markuu ka tagay cuntadii maalintii labaad cuntada uu geynayay albaabka wuu ka furo haddana qaado u dhahay. markuu soo laabanayay wuu imaaday gurigii ninkaa u imaaday haddana shaydaankii ibliiskii ninka iska soo dhigay ayaa u imaaday. wuxuu dhahay waniyo aad xishood badnidahay maxaa cuntada albaabka u dhigaysaa maxaa adig guriga ma u gelisid ma u dhigtid ma gabadha horta waxay toomaa soo fiirisid gabadha inay guriga ku jirto in kale maxaa ku ogtahay. marka ninka uu fikira wuxuu dhahay waa run maxaa yeelay gabadha inay guriga ku jirto inay xanuunsanto in kale ma ogi waa inay guriga soo fiiriyaan. marka ninkii wuxuu go'aansaday cuntada kale markuu u geynayo guriga inuu galo cuntada uu geeyo. marka maanta cuntada uu geeyay cuntada si uu waday guriga ay furdhahay ay ka furtay guriga uu dhex geeyay. marka qasab qofka waa fiirinaysaa marka fiirsano gabadha marka way adi dirac ma waxay qabtay dirac bis ma qabin garbasaar. marka shaydaanka u qurxiyay gabadha markuu arkay damca baa galay ninkii laakiin mula hadlin uu soo baxay. marka waa fiicanta soo ma hordhay uu soo maxaa la way soo baxday gabadhina shaydaan ayuu sheekeynaa camal ninkan asana uu ku doonaya camal labadoodba wuxuu rabaa inuu isku soo jeediyo maxaa yeelay shaydaan ma rabo dad qof jid toosan haayo maxaa yeelay waxna dhuminaya asagu way shaydaanka dadku dhumiyaa. marka ilaahay naga nasahan shaydaan. marka shaydaankii ninka haddana uu dhahay niyo naagta way ku fiirsaa way ku jeceshahay maalin hore ayadoo garbasaar la'aan baad guriga ugu gashay maad lahdashid niyo maad suqman u lahdashid. shaydaanka markuu qof ninkan uu ka tago gabadhaas u aadaa uu u sheekeeyaa ninkaas niyo adigu ku baahan yahay gabariyay ma lahdashid camal wuxuu rabaa isku keeno ay is dhexgalaan. marka ninka maanta macdo markuu u keenay gabadhu ag fadhiistay uu u sheekeeyay sheeko dheer baa dhaxmartay. sheekadii way u dheeraatay sheeko jacayl ba isku bedeshay jacaysh waa ogtiin jacayl wuxuu isku bedelaan hal guri qof laba gabar wiil iyo nin intay ku jiraan wiil iyo gabar intay ku jiraan waa ogtiin wixii dhacayo. marka zinadii ku dhacay ninkii ficnaa gabadhii ficnaad zinada ku dhacay shaydaan u sheekay zinada ku dhaceen maalin bilooyin kadib gabadhii uuray qaaday. labadii wiil oo maqnaayeen ilaa hadda ay maqan yihiin marka weli may soo laabanin. gabadhii uuray noqotay uurku wuxuu noqday haddana inay dhasho waxay dhashay gabar bay dhashay. marka ninka cunto markuu u keenay wuxuu arkay marka gabar oo uurku ku arko horta uurku uu la yaabay uu damcay inuu dilo shaydaanka dhahay dilin. marka shaydaanka asagu ilaa uu sheekeynaa sheekadiisa ma dhamaanayso shaydaan ogtiin shaydaan aad iyo aad u xun yahay. marka ninkii wuxuu dhahay gabadhan yar gabadhi ani aan dhalamaya miyaa u dhahay uu weydiiyey ay dhahday. marka adigu ku yar farxay laakiin muuna ku farxin maxaa yeelay maadaama ay tahay wical gabadha oo xalaalnimo ku aroosanin wuu iska yar farxay laakiin muuna farxin. xaafadda markuu imaaday gurigiisu soo galay shaydaanka u imaaday wuxuu dhahay niyo labada nin way soo dhow yihiin oo gabadha la dhashay way soo dhow yihiin. marka sidaa daraadeed waxaan doonayaa niyo inay adigu nin fiican baatay dadka dhan ugu aqaanaan. marka sidaa daraadeed gabadhan haddii loo imaado ayadoo wiil gabadhan dhashay haddii loo imaado marka adigu waa fashilmaysaa. sidaa daraadeed niyo oraday gabadha yar dil gabadhii hooyadeedba labada bedel qabrigoodna meelahan ka fogey niyo dhow markay ku weydiiyaanna niyo way dhimatay gabadhii xanuun baa ku imaaday nimankan way ku aamineen maxaa yeelay nin ilaahay ka cabsanaya inay tahay og yihiin. marka labadan gabadhii habarteedba dil. marka ninkii wuxuu qaaday garuun gabadhii yar uu dilay islaantana uu ku daray qabrigooda wuxuu ka dhigay guriyay degnaayeen gadaashood ayuu qabriga ka dhigay oo meel arkayo laakiin. marka maalmo kadib waxaa imaaday labadii wiil waxay imaadeen gurigii gabadhii walaashoodii markay ka waayeen guriga ayay u tageen sheekhi wuxuu dhahay waniyo war gabadhaas xanuun baa ku imaaday marka sidaa daraadeed
way dhimatay qabrigeedana waa kaa qabriga markii la geeyay ilaahay amarkiisa ilaahay wax wato waa oo ahaa waxay arkeen qabri haddana agtiisa oo yar markaasay weydiiyeen maxaa bay meeshan markaas way ka soo fakatay shaydaanka asana jirkiisa ku jira wuxuu dhahay markaas adi wuxuu dhahay waa gabar yar yaa dhalal dhahay markaas wuxuu dhahay anaa dhalay yaa ka dhashaa dhahay walaashiin marka sheekada way dheeraatay nimanku way aamin waayeen marka adi way aamin waayeen marka hore way aamineen oo ay dhimatay marka maxay yeelay ogaayeen inuu nin fiican oo ilaahay ka cabsana uu yahay been weligiis muu sheegin ay dhihi jireen marka saa daraadeed markuu dhahay gabadhan marka yaa dilaa la dhahay waa la weydiiyey yaa dilay maxaa u dishay marka uu dhahay gabadhan yar anaa dhalay marka waxay dhaheen marka maxkamadda isla fuulayna labadii wiil waxay dhaheen sheekhow anaga gacanteena kuma gaarto kuma dilayno laakiin maxkamad ayaan rabaa inaan ku saarno ayagoo jidka sii hayaan sii socdaan ayaa waxaa dhacday ninkii shaydaanka ibliiskii oo nin iska soo foomgareynayay oo iska soo dhigayay ayaa ka hor imaaday markaasuu dhahay taqaanaa dhahay ninkii wuxuu la hadlayaa ninkii sheekhi oo fiicnaa oo zinad ku dhacay wuu la hadlay wuxuu dhahay aniga ma taqaanaa wuxuu dhahay waan ku aqaanaa haa ninka waxaa igu baraarujiyey inaan gabadhaas ku dhaco zinadan ku dhaco inaan dilo meesha qabrigeed ka dhigo ninka igu baraarujiyey ayaa tahay saa daraadeed waan ku aqaanaa maxaa markaasuu dhahay aniga waxaan ahay shaydaan ibliis baan ahay shaydaan ayaan ahay bilaadan baa iska soo dhigay ilaahay ii fududeeyey imtixaan ilaahay u ahaa marka arrintan hadda maxkamad lagu wado waxaan rabaa inaan kaa badbaadiyo laakiin hal xal ayaad uga badbaadaysaa hashaas xalna haddaad ii samayso waad ku badbaadaysaa markaasuu dhahay xalka ay diyaar wey maxaa yeelay adaa xalkan adaa ingiliis dhibkan haddaad iga bixinayso maxaan ku diidaa dhahay markaasuu dhahay aniga ii sujuud markaas waa ka badbaadaysaa ninka meesha sujuud la dhacay shaydaanku u sujuuday ninkaas asaga wuxuu ahaa nin 60 jir ahaa 60kaas oo idil sana ilaahay ku xirnaa ilaahay u caabudi jiray 1 minute ayuu waxa dhan uu ka dhigay qof maxaa yeelay shaydaan buu u sujuuday ilaahay u sujuudaa shaydaan u sujuuday markuu u sujuuday soo kacayba ninka meesha uu ku baabay shaydaan ogtiin uu baabay meesha uu waayay ninka marka ninka maxkamadda la saaray waa la xukumay على وجهكم أنت صاحب سن دائني ماشي كل أنت سيدو كل أنت نيجا صوت توبت كينين الصقو وح توبت لقى هينين سيدو كل أنت هو شيطان وعاد وسجود مركا نكاسي وأدوكتين قف سي شيطان وسجودنا وأدوكتين يباتديس مركا ولا ليال قصة داس لبدا قصة الدون تكشكينا سا الدون إنه احترينين dadka dhan way ogjiin marka saas ay tahay dadka adduunka ay daba ordaan ilaa ya adduunka ay jecel yihiin marka tan adduun tan aakhira ka fiican ilaahay naga dhigo dadka aakhira adduunba liibaani insha Allah taala ilaahayna waxaan ka baryaynaa cudur baa jira oo coronavirus la dhahayo ilaahay naga qabto ilaahay rabbi raxmaano bil ramadaan baan ku jirnaa ilaahay naga qaado asagoo idil si masaajidaheenna loogu furo تراويح أن كنت كنه مساجد صلاة دينا فرض لنا أن كنت كنه إلهي أن كبرنا إن شاء الله تعالى وبابي دونا إن شاء الله عذر كان هن مركا ولا ليال أن كجنا بالخير بدن بيشان آد يا سويني إن نسوق الحمد لله رب العالمين لا ولا محل مركا ولا ليال